بسم الله الرحمن الرحيم وعن أو ونكسن ملول بقى جوكتان داوديال كنا سود هذا برنامج جار وينو كحق ورئيسنا عبد الرحمن الشيخ محمد حسن وصومالي أي أتقانو قبله كان مدة مشرحين تا دولة جولات كبودلان جار هان وحاو مشرح وياهي مدحوين لماذا معمول جولات كبودلان أوكي عبد الرحمن الشيخ محمد حسن ولوي كان قبله dhawaan ayaa waxa uu ku qabtay halkan shir jaraa'id isagoo ku sharxay waxqabadkiisa iyo waxyaabaha ku qasbay in uu madaxweyne uu ka noqdo dowlad goboleedka Puntland hadaba si ay dadweynaha Soomaaliyeed ay wax badan ugu ogaadaan arimahaasi ayaan waxa ii suurta gashay inaan xoguraysi ku yeesho magaaladan Qaahira ayagoo ay goobjoog ka yihiin saxafiyiin badan oo Soomaaliyeed oo ayagana halkan ku sugan markii uu qabanayay shirka jaraa'id Cabdiraxmaan Gablax musharaxa la hadalhayo maamul goboleedka Puntland okay su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay maxaa kugu qasbay in aad isu soo taagto madaxtinimada maamul goboleedka Puntland bismillaah bacd run ahaantii anigu waxaan ka mid ahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool North America Canada iyo Mareykanka muddo dheer in badan ayaanu intaan wax baranayno meesha joognay oo maartay xagaas ku dhaqneen aan rajaynaynay inaan one day wadanka iyagii oo barwaaqo oo degan aan dib ugu laabano ha ahaato dhinaca Puntland hase ahaatee Soomaali weyn oo dhan mid kasta ha noqotay hase ahaatee wax muddo arrintaas inay aad u dheeraatay maamulo badan ay ku kala dambeeyeen khaasatan Puntland aanu filaynay in shacabka gobolka ku dhaqan la gaarsiiyo isku filaansho ama se nabadgeliyo taam ah ama se meel laga bilaabi karo oo dib u dhis laga bilaabi karo runtii hase ahaatee arrintaas in badan baan sugnay wayna dheeraatay waxa ay aanu ka maarmi weynay in aan isku dayno inaan gacanteeda wax uga bedelo arrintaas oo aan barnaamij cusub sida adduunka u shaqeeyo oo shucuubta adduunka ku dhaqan xiriirka ay ula leedahay dalkooda hooyo ay ula leedahay ka dhaxeeya inaanu hirgelino inaanu shacabka register garayno in aanu khayraadka wadanka aanu uga faa'iideyno dadka Soomaaliyeed marka barnaamijkaas waanu in badan islahayn cid un baa u kici doonta hase ahaatee aan loo kicin ayaan maxaan ku raada doonayaa in aan wadankeena Cabdiraxmaan Gablax sida aad og tahay dhawaanahan deegaanada Puntland waxa ka taagnaa buuq badan ama dood badan oo dhinaca qabsoomida doorashada oo kale marka misleedahay carqalado badan ayaa hortaagan qabsoomida doorashada dowlad goboleedka Puntland carqalado waa jiraan kuwa aad u weyn baa jira waxaa jirta hadda hadaan la joogo in maamulka hadda Puntland ka jira uu isku dayahayo wax lagu magacaabo waqti kororsi waqtiga oo la dheereysto taasina waa mid aad iyo aad looga naxo oo aan run ahaantii sharciga waafaqsanayn waay madaxweynaha hadda jira iyo dawladdiisa Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud waxaa loo dhaariyay 4 sano inuu xilka hayo ayaa la siiyay oo loo dhaariyay oo si sharci ah loo siiyay waxa la yiraahdo kororsiimo meel ay ka soo gasho dimuqraadiyad iyo wadan baarlamaan leh haba yaraatee ma jirto qofka doonaya inuu taliyo baarlamaanka hor yimaada baarlamaanka ayaa siiya waqtiga ku talin lahaa waa loo dhaariyaa shacabka ka ogaada asagu ma dheereysan karo mana kororsan karo mana ka soo wareegi karo meelo maarta meelihii loogu talagalay kama soo wareegi karo marka arrinka hadda socda waa arrin aad iyo aad aan uga xunnahay waana aan hirgelaynin waxaa feer socda militarization iyo ishubayn iyo dowladda aad moodid in ay si xooga ku muquuninayso shacabka iraadadiisa iyo rabitaankiisa waxaa feer socda maxaa ku radaa shirar hoose iyo isku day in la maran habaabiyo maxaa ku radaa shacabka rabitaankiisa intaas waa jiraan waanu ka soo horjeednaa
wax shaqeynayana ma aha. waxaa fiican oo aan ognahay inay fiican tahay in dowladdu ay 4 sano oo loo dhaariyo ku ekaato. taas haday dhacdo waxaa meesha ka baxaysa in mustaqbalka maamul kale ama madaxweyne kale uu isku maaweeliyo wax riyo ah oo aan hirgelaynin oo ah sharcigii aniga gacanteeda ku qabanahaya, aniga ayaa dheeraynahaya, anaa san raba ka yeelahaya. taas waxa weeye dalka iyo dadka aniga iskale weeye, dalka iyo dadka aniga iskale oo san raba ka yeelaya weeye. waa ku tumasho xuquuqdii maxaa ku rahdaa shacabka weeye. marka taas way jirtaa, laakiin mid aan u istaagayna ma aha, mid hirgelaysana ma aha. daqiiqad xataa ma ogolin in lagu daro waqtigii loogu talagalay. taas ayaan ka qabnaa. dalkan waa dal kheyraadkiisu u badan yahay. haddii laga sarmaro oo maxaa ku rahdaa laga xishoodo in danaha shaksiga iyo xukun jacaylka iyo xukun boobka iyo diriqsiga waxaasoo dhan laga gudbo, oo xukunka la diriqsanayo iyo maaragtay laga gudbo, qofkii talahaya iyo qofkii maskaxaya iyo qofkii wuu hadlaya, haddii talada loo dhiibana wuu qabanaya. marka 4 sano waa waqti fiican oo lagu tijaabiyo ciddii wax bedelaysa. hadda ayaantan waxaa kale oo jirta inay dowladdu ka hadlayso xisbiyo, ay leedahay xisbiyaa la furahaya, waqti hana la siiyo oo ay qiil uga dhiganayso. xisbi haddii la furahayo, horta xisbiga waxa weeye cid kasta oo maamulka haysta ayaa wadi karta, qof kuma ay xira. madaxweynaha hadda jooga waqti buu leeyahay, waqtigiis markuu dhamaado wuu tagahayaa, cidda ka dambeysa ayaa wadaysa. xisbiya furidun waxay kamid tahay shaqada dowladdu inay qabato la doonayo, cid kastaana qaban karta, qof kuma xira. marka taasina waa xujo aad iyo aad runtii bul caaro ugu taagan wey, maaha mid oo rasmi oo la qaadan karo, runtii ma aha. waxaanu qirsannahay dowladda hadda jirta haddii waqtiga loo kordhiyo oo ay dheeraysato, waxaa soo kordhaya keliya waxaa weeye isbaarooyinka oo sii bata, amniga oo sii xumaada, xaaladdu inay kasii darto weeyaan. marka sabab loogu kordhiyo dowladda hadda oo ay leedahay waxaasaan soo qabtay oo maalintii xilka aanu qaadnay iyo maantay intaasoo isbedela ayaan suubinay, meesha ma taalo. sidaas darteed in qof kasta oo muwaatina waa u tartami karaa xilka kan, in qof kasta la tijaabiyo oo 4 sano kabacdi uu kusoo laabto baarlamaanka. hadduu shaqo qabtayna waa la siinaya codka, haddaanu shaqo fiican qabana iridu ka baxaya. marka taas ayaa runtii aanu arkaynaa. marka carqalada way jirtaa, laakiin carqaladu waxa waaye waa mid xalkeedu uu yahay in 4 sano oo loo doortay dowladda ay ku dhamaysato. taasaan u fadhinaa, taa midaan ahayn oon diyaar unahayna ma jirto. waa tahay haddii aan su-aal kale ku weydiiyo mudane cabdiraxmaan gablax, lacalla haddii waxyaabahan aad soo jeedinayso iyo musharaxiinta kale ee reer Puntland ayaguna diidan in waqti loogu daro dowladda haatan dhisan, maamulka farol u hogaamiye ay diidaan, maxay tahay go-aanka aad qaadanaysaan? wal go-aanka qaadanayna waxa waaye dalka shacabka iskale, sharci baa isku keenay, sharcigaas unbaa la raacayaa. wixii intaa ka badan oo ka baxsan la raaci maayo. waxa weeye dowladdu dalad maayo ma bedeli karto sharciga wadankana iyadu iskama leh. intaas waxaa dheer madaxweynaha hadda talada haya waxqabadkiisa waa ujeednaa, systemkii iyo nidaamkii uu yimid iyo ummadii iyo goboladii uu yimid meesha xaaladooda taagantahay waa ujeednaa. ganacsigii gobolka iyo barwaaqeyntii meesha maartay hadda maraysa waa ujeednaa. ma u haysto runta marka la sheego political capital ama se kalsooni uu xisbiyo oo hadda ku furi karo oo ku meel marin karo. hadda runtii ma u leh, kalsoonidaas laguma qabo, shacabka kalsooni kuma qabo. midda kale oo iyaduna runtii meesha imanaysa waxay tahay xisbi haddii xisbiyo badan la furahayo waa process la yaqaano oo adduunka oo dhan soo maray way intiisa badan oo nidaamka suubsatay. waxaa loo baahan yahay bal horta in shacabka wadanka u dhashay la register gareeyo oo la diiwaan geliyo. ayaga marka la diiwaan geliyo oo address loo suubiyo, haddii qofku uu guri leeyahay gurigiisa address u noqon kara, haddii aanu lahayn oo dadka maaragtay miyi ku dhaqan u yahay sida wadamada horumaray sida America oo kale iyo Rangers dadka la yiraahdo, addresska boxka meel lagu dhajiyo loogu suubiyo
bal horta dadka shacabka waddanka u dhashay waa in la diiwaan geliyo markii la diiwaan geliyo kabacdi waa in la abuuro deegaano siyaasadeed waxaa looga jeeda deegaano siyaasadeed intii qof oo waxaa la rabaa qof kasta oo baarlamanka ka mid ah in ay soo doortaan intaa oo qof ay soo doortaan oo la qaybiyo dadka mathalan puntland waxaa ka jira 66 deegaan siyaasadeed 66 kursi sida loo yaqaano waxaa marka la rabaa shacabkaas la diiwaan geliyey in loo qaybiyo 66 qaybood loo qaybiyo waa deegaan siyaasadeedyo kuwa ayaa xisbiyadu ku dhismi karaan xisbiyadu iyadoo aan deegaan siyaasadeed jirin iyadoo aan dadkii aan rajiso garaysnayn haddii la xisbi la abuuraya waa marin habaabis kale iyadoo baan ognahay hadda xisbiyada in ay ku hoos qarsoon tahay waqti kororsiga looga jeedo ay ku hoos qarsoon tahay ayaa haddana iyada qudheedu aanay waqtigeedii gaarin oo aan loo suubin waxyaabaha ku dhismi ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo cabdiraxmaan sheekh maxamed xasan oo loo yaqaano Gablax maxaad u ballan qaadaysaa shacab weynaha dowlad goboleedka Puntland adigu qudhaada maxaad kaga duwan tahay murashaxiintii ama musharaxiintii horey u soo maray maamul goboleedka Puntland iyo weliba madaxdii horey u soo martay dowladda Soomaaliyeed ee Puntland waxay u baahan tahay system anagu markaan ka hadlayo barnaamijka hadda aan wadno waxaan ka hadlayaa team baan ka hadlayaa waxaan rabnaa in albaabada usoo xurno maamul hal qof ka tala qaata oo hal meel maaragtay looga taliyo waxaan doonaynaa in team aqoon-yahana wax lagu maamulo waxaan doonaynaa sharci waara oo lagu kala dambeeyo oo aan qofkii yimaadaana wax weyn usan dhibaato weyn u geysan karin qofkii tagaana wax badan kala tegi karin in aan dhisno oo sida adduunka horumaray uu u leeyahay system tixgelin leh oo leh hay-ado iyo garabyo iyagu is ilaalinahaya inaanu dhistaan doonaynaa waxaan doonaynaa in aanu maxaa ku rahdaa awalan aanu shacabka ka qayb gelino go-aanada muhiimka ah ee dalkan gobolka laga gaarayo inaan shacabka ka qayb gelino oo shacabka ay talada u noqoto taasina waxaa ku imaanaysaa one man one vote waxaa la yidhaahdo oo ah in shacabka la diiwaan geliyo oo iyagu ay doortaan madaxdooda annagu haddaan 4 sano qabanno 4 sano gudahooda waxaan dadka ku gaarsiinaynaa talada inuu shacabku uu leeyahay baan ku gaarsiinaynaa waxaan hirgelinaynaa nidaam kala qaybsan oo garsoorku uu ka madax bannaan yahay dowladda garsoorku uu dowladda ka madax bannaan yahay presska waxaa loo yaqaano maxaa kale warbaahinta iyaduna ay ka madax bannaan tahay maxaa yeelay haddaan labadaas madax bannaanayn dowladdu say rabtay yeelaysaa dowladdu shaqadeedu waa fulin waaye dowladdu waa hay-adda madaxweynuhu wuxuu sareeyaa hay-adda fulinta hay-adda sharciga uma sareeyo hay-adda sharciga waxa weeye waa baarlamanka baarlamanka waxaan siinaynaa awood buuxda oo midda hadda jirto oo kale aan ahayn baarlamanka Puntland hadda wax awood oo weyn hadda u leeyahay male dowladda waxay wadata codkooda ma dhiiban karaan ma doodi karaan dowladdan su'aalo ma weydiin karaan ayadoo ay baarlaman yihiin oo shacabkii iyagu ay mas'uul ka yihiin dowladdu waa hay-ad fulin weeye waana inay ku shaqeyso awaamirta baarlamanka inay ku shaqeyso weeye maxaa yeelay baarlamanka ayaa shacabka matala marka anagu system shaqeynaya oo ixtiraam leh oo shacabka kalsooni ku qabo ayaan keenaynaa cadaalad baan abuuraynaa cadaaladda waxaan uga jeednaa shaqadu cadaalad bay noqonaysaa mid loo siman yahay bay noqonaysaa qof kasta oo muwaadina wuxuu noqonayaa qof wadaninimadiisa soomaalinimadiisa ay u tahay magac iyo sharaf u tahay laakiin aan qabiil sunahay baan gaarsiinayna haddii ilaah yiraahdo marka kuma koobi karo ilaha dhaqaalaha oo muhiimka ah ayaan mashaariic waaweyn baan furaynaa waddanka furaynaa si dadku ay shaqo u helaan maxaa yeelay nabadgelya darrada waxaa mas-uul ka ah dhaqaale xumada mas-uulka ah dhaqaale xumada la dagaalamayna ganacsatada ayaan u naxariisanaynaa canshuurtaanu ka yaraynaynaa protectionna waa siinaynaa oo waa u difaacaynaa hantidooda iyo naftooda intaba marka kuma soo koobi karo barnaamij dhan oo aanu doonayno inaan aan hadda banka abuurno hay-adahana runtii waxaan siinaynaa waxaan ka hadlayna hadal ma ahaanayaan waxay noqonayaan ficil bay noqonayaan insha allah
وتهاي آدي آد أياد أمهات تهاي كاسي وحوها عبد الرحمن الشيخ محمد حسن ولو يقان قبله dhowaan shir jira ay ku qabtay magaaladan Qaahira Cabdiraxmaan Gablax waxa weeyaan musharaxa madaxweynenimada dowlad goboleedka Puntland haddaan aan taariikhdiisa wax yar ka xuso waxa uu ku dhashay deegaanka Godob Jireen ee gobolka Nugaal sidoo kale dhinaca waxbarashadiisa inta badan waxa uu ku soo qaatay dalka Mareykanka isagoo haysta degree computer science iyo waliba master oo MBA ah sidoo kale wuxuu u soo shaqeeyay hay'ado badan oo caalami ah oo dhinaca ma aragtay oil companies iyo financial company iyo waliba dhinaca sharciga okay waana nin ku xeel dheer arimaha siyaasadda waata aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay bal haatan waxaan guda galaynaa su'aalaha ay weydiinayaan saxaafadda inteeda kale iyo shacab weynaha ka soo qayb galay shirki jiraad ee uu qabtay musharax madaxweynenimada maamul goboleedka Puntland okay ku soo dhawow Cabdiraxiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba oo ay arki doonta idaacadayga fiirsan doonta ama codkayga dhageysan doonta insha Allah biidnillaahil kariim waxaan ahay jaaliyadda wadankan Qaahira ummadda Soomaaliyeed jaaliyadda Soomaaliyeed oo joogta ayaan ka mid ahay qaxootiga ku ah gaar ahaan kuwa ka soo jeeda gobolka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Gablax ayaa halkan noogu yimid oo musharax u ah madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan hadalladiisa markii aan u dhageysanay aad bay noo qanciyeen waxaanan Cabdiraxmaan ku boorinayaa isagoo oo doonaya madaxweynaha Puntland inuu noqdo inuu ku raadiyo si nabadgelyo iyo kuwii kale oo tartamaya sidiisa oo kale inay ku raadiyaan si wanaagsan oo sharaf leh oo nabad ah waxaan kale oo u baaqayaa oo baaq nabadeed u jeedinaya dowladda Puntland iyo madaxweynaheeda golaheeda baarlamaanka isimadeeda odayaasheeda culimadeeda waxgaradkeeda dhammaan iyo shacabkeedaba in laga shaqeeyo nabadgelyada cidii Soomaaliya cadawyo badan ayay leedahay cidii xoog haysata ayadu hanoo hayso waxaan marka dhammaan dadkaas u jeedinayaa in laga wada shaqeeyo nabadgelyada waxaan kale oo jeedinayaa in aan ku darsasho wax la yiraahdo iyo sanad la kordhiyo iyo midna sidii ay ahayd Puntland 4 sano ayaa lagu doortay laguna doora jiray sidii madaxweynihii hadda ka horeeyay midakan oo 4 sano waqtigii markii la gaaray oo u tartamay in loo tartamo madaxweynaha hadda joogayo u tartamo hadii uu helayo codka de nasiibkiisa nin u baheli lahaa hadii isagu helo hadii Cabdiraxmaan helo hadii kuwa kale oo tartamaya ay helaan waxaan aad u rajaynayaa wax ku darsasho la yiraahdo iyo wax dhib keenaya iyo wax kala dira shacabka meesha ku nool iyo shacabkii meesha samaystay maamulka dhammaantood in loo shaqeeyo sida ay rabaan loogu shaqeeyo wax ku darsasho la yiraahdana ay jiraan doorashadu inay waqtigeedii dhacdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah waxaan ahay gudoomiyaha ardayda jaaliyadda Puntland ee ku dhaqan wadanka Qaahira hal mid baan rabaa inaan dhaho maanta Puntland ma joogto xilli la iska qabsado waqtigaasna waa waqti laga soo gudbay Puntland hadda waxa ka taagan sidaan ognahay ama la socono carqalado badan maamula go'ay sida hadda raas caseer karkaar state marka madaxweyne Farole meesha awal wuxuu ku yimid sinabada waqti madaxweynaha hore ma kordhisan waqtigiisa Janis buu qaatay dad kale Janis in la siiyo macnaha ku boorina maadaama ardayda macnaha ku dhaqan qurbaha oo soo maqan dalkoodii maanta dalkii in carqalad la ka geliyo marabno maadaama jiilka cusub oo soo barbaaraya aanu nahay waxaan rabnaa si nabad ku jiro oo silmiya inay doorashooyinka u dhacaan sidii kuwa hore u dhici jiray macnaha intaas aanu ku boorina maadaama aanu nahay ardayda ku dhaqan dalka Masar madaxweynaha u sharaxan maamulka Puntland mudane Gablax waa is aragnay waa noo yimid haddana sharar badan oo kale wada galinaa waa nin runtii ahaantii aad noo qanciyay weeye waxyaalaha uu wato ama qorshayaashiisa marka waxaanu soo boorinaynaa ama aanu jeedinaynaa
in ay xaaladdu ay ku dhacdo silmi macnaha silmi puntland maanta ma joogto waqti oo carqalad iyo buuq iyo waqtigaa waa laga soo gudbay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka socdaa journalka Dainil website-ka Dainil waxaan ku weydiinayaa su'aal waxa jira Soomaaliya waad aragtaa macnaha burbur xoog leh waxa ka jira koonfurta Soomaaliya Puntland waxa ka jira nidaam soo kabcay oo wax badan ka bedelay macnaha Soomaaliya marka hadii aad adigu qabsato oo xukunkaas aad qabsatid maxaad macnaha Soomaalida kale oo dhiban aad u qabanaysaa بسم الله الحمد لله بعد سؤال aad wanaagsan weeye walaal waxa weeye wadanka iyagu wuxuu ahaan jiray wadan ay xukunto central government dawlad hal meel looga taliyo heer fiican baan ku gaarnay sidaas nasiib daro nidaamkii waa naga burburay waana aragteen sida loo kala jajabay iyo sida xaaladdu ay gaartay iyo sida maxaan ku rahdaa siyaasadaha dibadda oo danahooda ilaashanaya ay noo soo dhex galeen marka waxa loo baahan yahay wadanka in dib loo isugu celiyo haatan xaaladdu waxay maraysaa in hoos laga soo dhiso way maraysaa marka waxaan aaminsanahay sida gobolada waqooyi ay u dhisteen maamul runtii kala dambeyn leh Puntland loo soo dhisay in gobolada kalena looga soo dhiso saasoo kale oo markaas ay hoos ka soo bilaabato marka haddaanu ku guuleysano in aanu Puntland ka istaajino nidaamkii loogu talagalay aslan inuu ka istaago haddaan taa ku guuleysano waxay guul u tahay Soomaali oo dhan waxaanu ka qayb qaadanaynaa gobolada kale ee Soomaaliyeed in ayaguna ay u noqoto midaani pilot project waxa la yiraahdo oo yani mashruuc ku deeshan mudan uu noqdo oo uu noqdo example inta kale uu noqdo marka de meeshii nabada oo nidaam laga hirgeliyo waa la siigsanaya Soomaali waxba isaga dayataa marka insha Allah ku deesho wanaagsan inaanu u bedelo xaaladda Puntland ayaanu jecelnahay waanu ka bedelno xaaladda hadda ay ku sugan tahay maxaan ku radaa isbaarooyinka badan iyo hadalad maayo canshuuraha badan iyo dhibta badan oo hadda soo korortay in aanu ka bedelno oo intaanaba u gudbin heer isku filaansho inaan at least dib ugu celino heerarka soo martay hadaan su'aal oo kale aan ku darsado waxaad ku nooleed qurbaad ku nooleed sistemada qurbaha waa aragtay macnaha doorashooyinka deegaanka sida dadku ay u qabtaan adigu dadka Soomaaliyeed ama xukuumadaha Soomaaliyeed hadda ama Puntland ahaada ama Somaliland ama dawladda dhexe Soomaaliya waxaad moodaa in shakhsiga madaxweynaha wax walba isku koobo uu yahay wasiir ra'iisul wasaare ilaa shaqada hoose uu qabto marka adigu haddaad qabato macnaha ma sidoo ayagoo kale aad noqonaysaa mase system furfuran oo sidii adduumaadka aad wadamada aad ka timid oo kale sida u furfurin adigana u furfurnaa doontaa si mustaqbalka dambe kugu daydo su'aal kale oo qiimo badan weeye system waxa la yiraahdo waa inuu asagu isku taagan yahay ma aha inuu qof sii maro systemada Greek hore iyo marka laga hadlayo ay soo mareen qofka wadanka xukuma wax walba ay sii maraan oo markii laba hay'adood wada xiriirayaan ay qofkaas sii dhex maraan waa sistemada loo yaqaan oligarchy systemka loo yaqaan weeye anagu waxaan ku bishaareynaa waxaanu fahanay adduunka horumaray oo xagga materialiska ka horumaray sida uu systemkiisu u shaqeeyo ka ayaanu doonaynaa mid la mid ah oo u cunama dalkanaga in aanu soo rogno waana mid hay-aduhu ayagu ay wada xiriiri karaan oo ay shaqadooda wadan karaan iyadoo aan ninka ama presidentaha ah ama premierka ah oo taladu wadanku ay ka go'do aan la marinin inaan la marinin waay marka taa ayaanu hirgelinaynaa walaal waanu fahansannahay waxaan rabnaa dalka inaan kusoo rogno nidaam shaqeynayo oo waxa loo yaqaano distribution of authority authority yani waa awood qaybsan wey waa la yaqaanaa wadadeeda taa ayaanu ku bishaareynayna dhegeystayaal waxaa halkaas ku soo dhamaaday barnaamijkii qaaska ahaa
loogu talagalay caawa ujeedinaya musharaxa puntland master cabdiraxmaan oo hadda ah musharax oo u tartamaya jagada madaxweynenimada puntland in muddaana ka soo shaqeeyay micnaha hay-ada kala duwan usoo qabtay dhegeystayaal waa shirkii jaraad ay halkaas kusoo afmeeraynaa waa barnaamijka bahda daynila bahda saxaafadda ee raadiyo dowladda universal kulli dhammaantiin waxaa idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo